kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo golaha deegaanka ayay kaga soo horjeesteen waraaqad uu xaaf xilka kaga qaaday maamulka degmada isla markaana uu ku kala diray golihii deegaanka degmada Gaalkacyo wuxuuna sidoo kale magacaabay maamulka Milgaara gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo warbaahinta kula hadla xafiiska dowladda hoose ayaa waxba kaman jiraan ku tilmaamay waraaqada ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale Geele Xaaf wuxuuna uga digay qaska iyo fowdada uu ka wada magaalada Gaalkacyo asaguna bulshada magaalada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka magaaladooda dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo waxay ku timid nidaam sharci ah 27 xubin golo deegaan ah oo laga soo doortay 4 xaafadood ee Gaalkacyo ayaa doortay maayarka iyo ku-xigeenka degmada Gaalkacyo si sharci iyo nidaam ah waxayna ku timid dowladda hoose degmada Gaalkacyo doorashadaas waxaana ballan qaadnay oo shacabka u ballan qaadnay in aan gaarsiino tiina ku doortay mid la mid ah oo aan bulshada gaarsiino sidii aan ballan qaadnay doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo degmada Gaalkacyo la qabto nidaamkaas dawliga ah iyo systemkaas dawliga ah ee lagu soo dhisay maamulka degmada Gaalkacyo waxaan rabnaa sidii lagu igmaday inaan ugu shaqeyno bulshada ugu adeegno nidaamkii maamulkii naga horeeyay uu soo gaarsiinay inaan maamulka naga dambeeyay gaarsiino hadii ilaahay idmo sidoo kale waxaan u sheegaynaa bulshada reer Gaalkacyo in maamulkii degmada Gaalkacyo uu shaqeynayo sida u jeedaan ba xafiiskii baan joognaa shaqadeena caadiga howl maalmeedka aan wadnaa xafiisyada waa shaqeynayaan bulshada sidii baan ugu adeegaynaa sida ay noo soo doorteen oo ay nagu igmadeen xilka nagu dhibteen baan ugu adeegaynaa ilaa aan ka gaarsiino ballanqaadkii ahaa in ii sheegay aan gaarsiino nidaamkii doorashada ahaa oo processkiisu mar hore bilowday socdana hadda waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa ii sheegay waxa waraaqda la sheegayo inay xalay ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale waxaan leenahay magaalada Gaalkacyo uma baahna buuq shaqsiyeed uma baahna waan la talinaynaa in oday weeye waxaan leenahay arintaas maahan mid haboon maahan waxaan ugu baaqaynaa shacabka Gaalkacyo mar labaad iyo mar saddexaad inay dawladnimadana taageeraan xasiloonidooda iyo amnigooda ilaashadaan sidoo kale waxaan u sheegaynaa dadka cabashada ah ka cabanaya ii sheegay dhismaha maamulka Galmudug waxaan u sheegaynaa Gaalkacyo maahan meel foodo maahan waxaa la rabaa qofkii cabasho qaba ha tago caasimadii dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb oo shaqada doorasho ka socota cabashadiisna ha u gudbiyo wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxweynaha uu wakiishay inay shaqada qabtaan maahan Gaalkacyo meel foodo maahan meel cabashana maahan waa degmo ka tirsan degmooyinka Galmudug marka waxaan u sheegaynaa dadku cabashadooda inay la aadaan caasimadii Galmudug Dhuusamareeb waana maasanteed